gobolka Sanaag waxa uu ka mid ahaa goboladii ugu horeeyay qaata aqoonsiga gobolnimo isla jeerkana waa gobol ku xardhan xadaarad iyo ilbaaxnimo soo jireena. gobolkan ayaa haddana gobolka ugu kheyraadka badan gobolada Somaliland waxa uuna leeyahay dhul beereedyo waaweyn oo ay ka baxaan dalagyo kala duwan sida beeyada, xabkaha iyo faleenka, macdanta ay ka mid tahay dahabka oo haatan laga helo badiba buuraha gobolka Sanaag iyo waliba badda cas oo iyana kaga dhararan dhinaca waqooyi iyo dhul buuraley ah iyo bannaano cagaaran. juqraafi ahaan wuxuu dhacaa bariga Somaliland, sidoo kale gobolka Sanaag waxaa intaasi u dheer dhul dalxiiseed u qurux iyo bilic badan oo ay ka mid yihiin buuraleyda Daalo, Calmadow, Gudmo Biyo Cas iyo weliba dhul beereedyada Xiis, Dayaxa iyo Midhisho. sidoo kale waa gobolkii awoowayaasha oo badiba dadka Soomaaliyeed ay ka soo farcameen. waxa gobolkan ku aasan Sheekh Daarood, Sheekh Isxaaq, Sheekh Ciise, Sheekh Samaroon iyo weliba awoowayaal kaloo badan oo ay Soomaalidu ka soo farcantay intii ay jirtay Somaliland. gobolka Sanaag waa gobol ka dambeeya guud ahaanba gobolada kale ee dalka marka loo eego dhinacyada arrimaha bulshada, horumarka, ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo kaabayaasha kale ee arrimaha bulshada. gobolka Sanaag wuxuu ahaa gobol goodoon nololeed kaga jiray guud ahaanba gobolada dhinacyada ka xiga, taasoo loo aanaynayo waddo xumaantii haysatay inay ku riday dib u dhaca waxbarasho, caafimaad, ganacsi iyo guud ahaanba horumar la-aanta ay bulshada reer Sanaag la daalaadhacayeen. dadaal badan iyo juhdi ay gelisay xukuumaddii hore ee madaxweyne Siilaanyo waxa suurta gashay in gobolka Sanaag uu helo waddo laamiya oo ku xidha gobolada galbeedka dalka Somaliland. sidoo kale waxa gobolka Sanaag uu nasiib u yeeshay inuu helo waddo laamiya iyana isku xidhi doonta Ceel Daahir iyo Ceeri Gaabo. samir iyo rajo dheer kadib, shacabkii Sanaag ee muddooyinka badan saadaalinayay inay subaxun ay u soo bixi doonto iftiinka horumarku ayaa ah gobol maanta ay ku soo qulqulayaan guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed, iyadoo gobolka laga helay macdanta nooceeda kala duwan sida dahabka bisil iyo ka qaydhiinba. sidoo kale dadka qaarkii ayaa u soo dalxiis tegaya buuraha Ilaahay ku manaystay bilicda iyo quruxda oo awal caqabada ka hortaagneyd ay ahayd waddo xumo gobolka ragaadisay. guud ahaan gobolka Sanaag ayaa ah kaydka dhaxalka iyo hidaha shacabka Soomaaliyeed, bulshadiisuna waa mid ku abtirsata taariikhda iyo ilbaaxnimada gobolkani leeyahay. waa Jaabir Saciid Ducaale, Jaabir Bulshaawi, Horyaal TV, Ceeri Gaabo.